China waxay dhistay 50 caasimadood oo naqaf bilaad ku nooleen ayagoo sheegeen inay ugu talgaleen korarka dadkooda ay sii gaarayo bilaayiinta. Caasimadaha dabaqyada ayaa arka sii jejeeda dadka degi doona ilaa hadeer dowladda ma cayimin tiradooda, balse waxaa loo diyaariyey wax walba oo loogu talgalay caasimad. Dukaamadii, leerarka wadooyinkii oo sharxaad lagu dheehay, taasoo la macno ah in caasimadda la tartamayso caasimadaha kale adduunka. Kontonka caasimadood ayaa dadka China waxay u yaqaanaan caasimadii juudaanka, ayagoo ula jeedaan in baqdin tahay in lagu noolaado caasimadaha qab bilaadan ku nooleen. Waxaa loo diyaariyey iskuulaadkii oo loo dhammaystiray agabka waxbarashada oo loogu talgalay carruurta la deji doono sida waxbarashadooda ay marnaba uga mashquulin. Xafiisyadii dowladda iyo xafiisyada hoteelada iyo xafiis walbo dadka u baahan yihiin soo degi doono waxaa lagu sii diyaariyey caasimadahani China. Garoonka kubadda cagta oo kuraastiisa, rooggiisa, leerkiisa, saacadiisa loo dhammaystiray iyo goobihii dadka ay ku dalxiis lahaayeen oo loo yaqaan sidewalk ayaa loo sameeyey casradii sida dadka ay ayagoo dhibaato dareemeen ugu lugeeyaan. meelaha dalxiisayaasha ayaa kor u dhaafaya 2500 oo loogu talgalay dadka inay waqti ku qaataan. waxaa loo sameeyey kuraastii dadku fadhiisan lahaayeen, dhir kala duwan iyo qaabab kale oo loo qurxiyo meelaha dalxiiska dadka indhaha soo jiitaan. habeenkii ayaa wadooyinkii waxaa lagu arkaa dad yar oo dalxiisayaal ah oo u kala hayaama gobollada si ay caasimadan waqti ugu soo qaataan aan qaf bilaadan joogin. waxaa ku aanbaxday hoteelada ugu caansan caalamka ayaa guryo ka sii samaysanaya si hadhow dadka degan iyo dadka imaan doonaba ay hoteeladooda u sii degaan. mashruucan ayaa dowladda ugu baxaysaa intaasoo trilyan oo dollar. waxaa loo sameeyey calaamadaha wadooyinka, traffic lightkii iyo signpost walba oo la macno ah dadka inay la jeen qaadaan caasimadaha. tareenka ayaa lagu arkayaa 2 qof ama 3 qof oo dalxiisayaal ah oo ka soo baxaya caasimadaha sida Wuhan, Shenzhen. elaboorkana qaf howl wadeen xataa kuma noola oo wuu haawanaya, balse waxaa loo dhammaystiray qalabyo elaboorka casrigiisa ah. hoteelka oo loo dhammaystiray qalabka casriga ayaa ah hotel keli ay dadku ku nool yihiin ay u soo dalxiis taga caasimadani iyo caasimadaha kale ee ilaa hadda qafka bilaadanka ku nooleen. waa China samaysa caasimadaha qaawan